golaha wakiilada Somaliland ayaa maanta ansixiyay miisaaniyad sanadeedka 2017 waramurtaasi ku saabsan waxa magaalada Hargeysa inoogu haya wariyahayaga Faysal Yusuf Kacaan fadhi ay maanta yeesheen golaha wakiilada Somaliland oo shir gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa waxa mudanayaasha loo horkeenay miisaaniyad sanadeedka sanadka 2016-2017 fadhigaasi ay maanta yeesheen golaha wakiilada Somaliland ayaa waxa soo xaadiray 67 mudane kaasoo gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland ku codsaday in duuduub loo ansixiyo miisaaniyad sanadeedka 43 xildhibaan ayaa ogolaaday in duuduub loo ansixiyo halka 17 xildhibaan ay diideen 6 xildhibaanna way ka aamuseen gudoomiyahana ma codeynin sidaasi ay ansax ku noqotay miisaaniyad sanadeedka 2016-2017 hadaladii gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdiraxmaan Cirro waxa kamid ahaa soo jeediyay in laga doodo lixii soo jeediyay Faysal Yusuf Kacaan, Wabri TV, Hargeysa.